بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مeel kastoo aad joogtaan ba allaha awoodda la dhammaanteen waxaynu ka wada baryaynaa inuu naga wada badbaadiyo cudurka safareenka ee coronaviruska iyo cudurro kaleba waa maalinimo talaado ah kowda bisha Diseembar 2020 cudurka coronavirusku weli saameyn xoog leh ayuu ku leeyahay meelo badan oo adduunyada ka mid ah iyadoo dhinaca kalena shirkadaha dhinaca talaalada ballan qaadana ay doonayaan in loo ogolaado in la soo saaro si markaa loo gaarsiiyo meelo badan oo dunida ka mid ah oo cudurku uu saameyn ku yeesho dad badanna uu ka laayay wararkii ugu dambeeyay waxaa ka mid ah in shirkadda lagu magacaabo Moderna oo ka mid ah shirkadaha iyagu ballan qaaday in talaalkooda boqolkiiba 94 uu yahay mid la hubiyay inay doonayeen inay shalaba codsadeen codsiga ay ka codsanayaan dhinaca Mareykanka iyo reer Yurub inay u ogolaadaan inay dib u bilaabaan soo saarista talaalka maadaama uu diyaar yahay si markaasi looga faa'iideysto xaaladaha degdegga loo adeegsado arrintaas ayaa waxa ay Moderna ku tilmaantay inay tahay mid guula oo u soo hoyan doonto guud ahaanba bulshooyinka caalamka ayna soo jeedinayaan in qolyaha qaabilsan la socodka iyo arrimaha tijaabooyinka la qaado ay hubiyaan in talaalku uu ammaan yahay dhinaca kalena uu yahay mid wax taraya kadibna markaa la bilaabo qaybintiisa waxa ay sheegtay shirkadda Moderna inay dadaallo xoog leh ay sameysay oo tijaabooyin kala duwan ay kala qayb galeen dad iyagu iskood isu xilqaamay oo doonaya inay talaalka ka qayb galaan kuwaasi oo gaarayay bay yiraahdeen ilaa iyo 30,000 oo ruux dadkaas ay ku sheegtay Moderna kala bar oo ah 15,000 oo ruux in lagu talaalay talaalka saxda ah ee cudurka coronavirus loogu talagalay inuu joojiyo isla markaasina uu haddana hakiyo in dadku ay isu gudbiyaan laakiin 15,000 kale aan lagu talaalin balse talaal ka lagu talaalay si labada dhinacba loo eego qolyaha sida saxda loo talaaliyo qolyaha kale xaalkoodu sida uu noqonayo waxay sheegeen inay markay eegeen ka baaraan degeen ay u fiirsadeen tijaabooyinkii kala duwanaa iyo wajiyadii kala duwanaa ay Moderna shaaca ka qaaday inay jireen dad gaaraya 185 ruux oo ah dadka aan talaalka saxda lagu talaalin talaal ka uu ahaa laakiin aan wax difaaca haysan laga arkay cudurka coronavirus inuu kadib ku dhacay oo waliba qaarkood ay la ildarraadaan waxa kale oo ay shirkadda Moderna sheegtay inay jiraan 11 case ama 11 xaaladood oo ah dadka iyaga la talaalay oo iyaga laftooda laga arkay xaalado laakiin aad aanay u ildarrayn marka daba la fiiriyo shirkadaasi Moderna waxa ay sheegtay talaalku inuu waxtar leeyahay oo uu quman yahay oo wax ka qabanayo guud ahaanba cudurka coronavirus ka joojintiisa iyo fiditaankiisa waxaana ay sheegeen in haddii si degdeg ah loogu ogolaado ay markaas suurtagal noqon karto in wax badan uu taro oo waliba xaalad degdeg ah loo adeegsado kaasoo farabaas ku haya guud ahaanba aadanaha adduunka ku nool shirkadaha kale ee iyaguna talaalka waxaa ka mid ah shirkadda lagu magacaabo Pfizer oo isbahaysteen shirkadda BioNTech kuwaasi oo iyaga laftoodu sheegay in boqolkiiba 95 ay ku guuleysteen tijaabooyinkii wajiyada kala duwan lahaa oo iyagu horeba u codsadeen jimcihii la soo dhaafay toddobaad ka hor weeyaane in markaas loo ogolaado inay soo saaraan si degdeg ah si loogu adeegsado waxay sheegeen marka loo ogolaadaba inay suurtagal tahay markiiba inay bilaabaan soo saarista oo ay markaa adduunka ka gaarsiin karayaan Pfizer iyo BioNTech codsigooda waxaa loo maleeyaa in loo fadhiisto 10 bishan maanta bilowga ah markaas loo fadhiistana isla maalintaas go'aan la gaaro oo ay dhici karto 11 iyo 12 Diseembarba soo saaris ballaaran Pfizer iyo BioNTech inay bilaabaan si markaas adduunka loo gaarsiiyo waxa kaloo codsiga samaystay shirkadda AstraZeneca iyo jaamacadda Oxford oo iyaguna sheegay arrimahooda inay quman yihiin oo talaalkoodu boqolkiiba 90 uu yahay mid waxtar leh markii tijaabooyin xoog kala duwan la qaaday haddaba shirkadahan iyaga marka la fiiriyo waxyaabaha ay ku kala duwanaan kana ayaa jira oo waxaa ka mid ah dhinaca kaydinta talaalka iyo waliba dhinaca qiimaha haddii la fiiriyo AstraZeneca halkii doos waxa uu noqonayaa lacag gaaraysa 3 gini oo giniga sterlinka ee UK oo u dhiganta $4 Mareykanka marka daba la fiiriyo dhinaca shirkadaha Pfizer iyo waliba BioNTech waxa halkii doos ay iibinayaan 15 gini oo u dhiganta ilaa iyo $20 marka la fiiriyo shirkadda Moderna halkii doos waxay iibinaysaa 25 oo u dhiganta $33 waxay kaloo ku kala duwan yihiin qiimaha ka sokow AstraZeneca waxa ay sheegtay talaalkeeda in lagu kaydin karayo temperature-ka ama heerkulka caadiga ah ee firiijyada dadku ay haystaan laakiin labadan kale shirkadood oo midna ay isbahaysteen Pfizer iyo BioNTech iyo waliba Moderna waxay u baahan yihiin qabow gaaraya ilaa iyo 70 digrii arrimahaasi oo dhan marka la fiiriyo adduunyada isku mid maaha xaaladahooda heerkulkuna waa uu kala duwan yahay dadka laftooda doonaya in la talaala xaaladahooda dhaqaale way kala duwan yihiin arrimahaasi oo dhan waa arrimo loo maleeyo inay dhici karto wadamada adduunku inay kaalin ka qaataan oo ay dadka markaas ka saacidaan ay ka kaalmeeyaan sidii talaal loo heli lahaa
UK marka la fiiriyo oo shirkadda AstraZeneca iyo jaamacadda Oxford ay tallaalkoodu diyaar yahay laakiin ay sugayaan in loo ogolaado oo keliya ayaa dhinaca kale shirkadaha Moderna iyo shirkadaha kale laftoodu reer Yurub iyo America ay ka codsanayeen in iyaga laftoodu ay u ogolaadaan waliba dadka khubarada ah ee xagga sayniska iyo dhaqaatiirta ee UK waxay sheegeen shirkaddan Moderna lafteeda codsiga uga yimid inay eegi doonaan tallaalkoodu inuu waxtar leeyahay in kale siday u eegi doonaanba AstraZeneca iyo waliba jaamacadda Oxford UK hore ayay waxay u dalbatay tallaalo kala duwan oo malaayiin ah marka la fiiriyo AstraZeneca iyo Oxford UK waxay ka dalbatay 100 milyan oo doos marka la fiiriyo Pfizer iyo BioNTech UK waxay hore uga dalbatay 40 milyan oo doos marka la fiiriyo Moderna UK waxay hore uga dalbatay markii hore 4 milyan laakiin maalinimadii daraar ayay waxay ku dartay 2 milyan taasoo ka dhigaysa in Moderna ee UK dalbatay ilaa iyo 7 milyan oo doos waa tiro aad u fara badan marka la fiiriyo haddaba wasiir cusub oo qaabilsan arrimaha tallaalka soo saaristiisa ee UK oo lagu magacaabo Nadeem Zahawi ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in ay laga maarmaan tahay dadku inay jeclaystaan tallaalka laakiin waxa uu yiri tallaalku marka la fiiriyo UK qasab maaha in qofka la tallaalo balse waa doonista qofka ayuu yiri laakiin waxaanu meesha ka saarin in wax walba ay wanaagsan yihiin marka si guud loo qaato la fahmo taasoo uu sheegay in la istalaalaa inay u wanaagsan tahay shakhsiga laftiisa qoyskiisa laftiisa mujtamaca uu la nool yahay iyo waliba dalka taasoo ku habboon buu yiri markaa inay istalaalaan laakiin mar kale ayaa lagu celiyo waxa la yiri UK talaalka cudurka coronavirus-ka looga hortagaya mid qasaba maaha oo qofka doonistiisa ay ku xiran tahay dhinaca kale UK marka la fiiriyo waxa aad looga hadlay maalinimadii Isniintii heerarkii kala duwanaa ee 4 toddobaad ee England markaas xayiraadu ay ka jirtay taasoo ku eg maalinimada berri oo Arbaca oo 2 December ay tahay xogayaha caafimaadka ee UK Matt Hancock ayaa waxa uu sheegay in loo baahan yahay in la raaco nidaamyada iyo shuruucda si markaas cudurku u yaraado waxa uu tusaale u soo qaatay xogayaha caafimaadka ee UK oo uu yiri toddobaadkii la soo dhaafay oo kaliya dadaaladii dadku ay sameeyeen in cudurku uu fidaa 30% ayuu hoos u dhacay waxa kale oo uu sheegay in laga maarmaan tahay barnaamijka bilaabanaya 2 bisha markuu kani dhaco ee soconaya ilaa 3 February oo kale heerka ah heerka dhexe heerka sare iyo heerka aadka u sareeya dadku inay maqlaan oo ay qaataan iyadoo mar walba la eegayo sida dhulku uu kala yahay iyo xaaladdu sida ay tahay 99% ayaa la sheegay England dhamaanteed inay noqon doonto heerka ugu sareeya oo aan heer ka dambaynin xagga feejignaanta iyo islaalinta marka laga hadlayo cudurka coronavirus-ka waxa kale oo iyaguna hadlay xisbiga mucaaradka ee Labour-ka ninka isagu madaxda ka Sir Keir Starmer oo sheegay in dawladda uu ku dhaliilayo qaabkay u wajaheen guud ahaanba cudurka coronavirus-ka iyo waliba nidaamyada ay soo rogeen oo qaarkood aanay sidii habboonaa iyo waqtigii ku habboonaa aanay adeegsan waxa kale oo uu sheegay ninka gudoomiyaha ka xisbiga mucaaradka ee Labour-ka ee UK in qaadista codka la qaadayo salaasada aanay iyagu baarlamaan ahaan codkooda dhiibaneen oo dibadda ay ka joogi doonaan laakiin haddana ay jecel yihiin in la qaato awaamiir iyo nidaamka mar hadiiba ay waxtar iyo faa'iido ay leedahay haddaba UK guud ahaanba marka la fiiriyo talaalka ay isu diyaariyeen haddii ay tahay goobo gaar ah oo loogu talagalay oo goobaha isboortiga waaweyn ka mid yihiin haddii ay tahay isbitaalada iyo waliba haddii ay tahay dhaqaatiirta amaba GP-ga waxa loo yaqaano oo dadku ay sida gaarka u leeyihiin oo ay mar walba la xiriiraan dhinaca kale waxa ay sheegeen qoliyaha caafimaadka oo xogayaha caafimaadka ee UK Matt Hancock ugu horeeyo in awaamiirta oo la qaato iyo nidaamyadu ay culayska iyo cadaadiska ka qaadayso shaqaalaha NHS ee dhinaca caafimaadka ku howlan taasoo markaa yareyn karta buu yiri dadka baahida gaarka u qabi kara inay meelahaas tagaan mar haddii ay caafimaad qabaan oo cudurkii ay guud ahaanba iska ilaaliyeen UK marka la fiiriyo waxay ka mid tahay wadamada cudurka uu saameynta xoog leh ku yeeshay mowjadiisii koobaad mowjada labaadna ay aad u carcarsanayd oo maalmihii ugu dambeeyay la arkay xaaladdu siday ahayd shalay oo kaliya UK waxa ka dhintay 213 ruux taasoo tirada guud ee UK ee cudurka ka dhimatay maalinkuu bilowday ilaa maalinka maanta ka dhigaysa 58,448 ruux guud ahaanba caalamku dadaal xoog leh ayuu ku jiraa iyadoo xoog lehna waxay ka qabaan in marka bisha December la eego arrimahan ku saabsan talaalada waxtarkooda iyo inay fiican yihiin in markaas talaalo badan ay soo bixi doonaan oo ay u arkaan markii gacmahooda ama garbahooda mid kamid ah lagu talaalo in cudurka markaas aanu holin karin amaba aanay qof kale cudurka aanay qaadsiin karin haddaba waxaa la eegayaa arrimahaas sida ay noqdaan laakiin marka la fiiriyo guud ahaanba adduunyada wadamo 12 wadana ayaa dadka cudurka uu ku dhacay tiradooda ay 1 milyan ka badan tahay walow ay
kala badan yihiin maraykanka marka la fiiriyo dadka cudurka uga dhacay ilaa iyo 13 milyan iyo bar ayay kor u dhaafayaan ama bay u dhow yihiin marka la fiiriyo dalka Hindiya 9 milyan iyo dheeraad ayaa cudurka uu ku dhacay dalka Brazil marka la fiiriyo 6 milyan iyo bar ayaa cudurka uu ku dhacay wadanka lagu magacaabo Russia marka la fiiriyo cudurku waxa uu ku dhacay ilaa iyo 2 milyan iyo 300 kun dad ku dhow marka daba la fiiriyo dalka Faransiiska ilaa iyo 2 milyan iyo 20 kun oo ruux ay dadka badan ayuu cudurku ku dhacay wadamada kale ee sida aadka cudurku uu saameynta ugu yeeshay waxa kamid ah UK waxa kamid ah Talyaaniga waxa kamid ah Jarmalka waxa kamid ah Faransiiska waxa kamid ah dalka lagu magacaabo Mexico guud ahaan wadamadaasi marka la fiiriyo halka milyan ka badan waa ilaa iyo 12 wadan 6 wadan oo kamid ah waa reer Yurub 5 wadan oo kamid ah waxa la isku yiraahdaa dalalka Americas wadanka kaliya ee Asia ka socdaana waa dalka Hindiya marka daba guud ahaan la fiiriyo adduunyadu waxay rajeynaysaa wanaag fara badan inuu yimaado oo markaas talaalka la helo kadibna talaalka ay suurtagal u noqoto dadku inay ka faa'iidaan oo dhibaatada iminka halka sano madaxa la gashay oo ah halka sano cudurka coronavirus uu jiray oo wax walba la degay dhaqaalihii uu la degay shaqaalihii uu la degay dad badan ay ku faqriyeen shirkado badan ay ku faqriyeen intaasna culays xoog leh uu jiray oo marka ka dambaysa dalalkii jabka buuraa laftooda jabkoodii uu sii yaraanayay mar haddii aanay jirin dhinacii dhaqaalaha iyo socodkii howlihii iyo guud ahaanba shaqaalihii shaqo tagi jiray taasoo weliba la arkayo wadamo waaweyn oo ah wadamada dhinaca warshadaha hore uga maray sida Mareykanka iyo weliba dalal Yurub ku yaala dadku inay cuntada safaf u galaan taasoo ah mid aan hore loo arki jirin marka la fiiriyo reer Yurub dalalka qaar adduunka lagu arki jiray haddii cudurka coronavirus uu sii socdana xaalku ma qumana mana wanaagsana haatan dawlado badan oo dunida ayaa shaqaalahooda gargaara oo lacag siiya ka yar mushaarka ay qaadan jireen ay shaqaysan jireen laakiin marba muddo ayaa la qabtaa lama soo oga xilliga ay socon doonto guud ahaanba adduunku waxa uu rajeynayaa wanaag fara badan iyo cudurkan laga baxo laakiin aanay ogeyn haddana sida ay wax noqonayaan laanta jumciyadda qurumaha ka dhaxaysa ugu qaabilsan arrimaha caafimaadka WHO waxay hore u soo saartay digniino xoog leh oo ah in la ilaaliyo oo la kala fogaado sankii afka in la xirto isla markaasina faraha ama gacmaha mar walba la dhaqo tan iyo inta laga helayo talaalka ku haboon si gaarana WHO waxay digniin u siisay dalalka xilliga qaboobuhu haatan ku jira uuna ku soo fooleeyeen bilaha badan ilaa 5 bilood iyo ka badan lagu tilmaamay oo reer Yurub iyo Canada iyo America ay kamid yihiin waxaana daba eegi doonaa guud ahaanba talaaladan la ballan qaaday December marka la arko in qaarkood la ogolaado iyo sida adduunka loogu qaybiyo marka daba aynu fiirino fariintan iyada ee maalinlaha ay cudurka coronavirus-ka waxa fududeeya sharikada dhinaca qaadista alaabooyinka xagga UK laga qaadayo lana keenayo xagga Soomaaliya guud ahaan la geenayo lagana keenayo waa sharikada lagu magacaabo Parcel Host oo fadhigeedu yahay UK xafiiskeeda weynina uu ku yaalo bariga magaalada London 473 High Road Leyton halkaas oo uu diyaar ku yahay ganacsade Axmar Barqadle iyo weliba iyadoo halkaas laga heli karayo oo kale DHL-ka guud ahaan adduunyada oo dhan laysaga daabulo alaabooyinka hadda diraysidii haddii lagu keenayo intaba ganacsade Axmed Barqadle waxa kale oo bulshada u haya guud ahaanba telefoonada noocyada kala duwan ee kuwa ugu dambeeyay iyo cunooyinka kala duwan waxaana lagala xiriiri karaa telefoonka eber 7949528277 dadka Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan badhib iyo dheef waxay la wadaagaan dadweynaha dunida waxaana laga rabaa inay islaaliyaan ay feejignaadaan baryada ay badiyaan nadaafadana ay ku dadaalaan inay dhageystaan awaamirta ka imanaysa maamulayaasha dalalka ay joogaan iyagoo aan iloobi in halku dhigi ahaa walaalle ha ii soo dhowaan yaana kuu soo dhowaan yaana isu soo dhowaan aan kala fogaano baryada eebba aan badino nadaafadana aan ku dadaalno maxamed axmed xaaji cagmadhiga iyo bahda telefishinka caalamiga Universal ugu qaabilsan arrimaha ka wacyigelinta bulshada cudurka coronavirus oo idin leh annagoo kariimkeena kaashanayna kaalinteena aan ka qaadano ka hortagga coronavirus ma sha Allah